meeshan isagoo joogaan ogeyn bay qorshuhu wada lacagtii aan u dhiibnayna kabtu wadanka ku damin lahaa midnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muwaafaqadeeda uu kaga shaqeyn lahaa yaa wuxuu kaga shaqeeyay inuu rasaas iyo shidaal u siiyo burburinta Soomaaliland iyo kala qaybinteeda kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasheena ku xidhan barnaamijyada xog waran ku soo dhawaada barnaamijka kaga waramayno amaanu diirada ku saaran xaaladii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood oo maalinta u dambaysa halkaasi ka sii daraysa maanta dagaaladii ugu waaweynaa ayaa ka dhacay agaga magaalada kuwaas oo isku farasaareen xogaga xornimo doonka amaba xogaga difaaca gobolada SSC iyo shacabka iskaashanaya waxaa la sheegayaa in meelo kala duwan oo dagaaladaasi maanta ka bilowdeen oo ay ka mid yihiin Maraaga Buundada Boode iyo goobo kale sidoo kale faliska Gooja Caddo meesha ugu weyn ee ciidamada Soomaaliland ay fadhiyaan ayaa la sheegayaa in la isku weeraaray amaba ciidamada xaqu-dirarka ee gobolada SSC iyo shacabkoodu ay hareereeyeen halkaasna ay ciidamada Soomaaliland ay go'doon ku jiraan sida ay wararku nagu soo gaarayaan sidoo kale maanta oo xaaladahaasi waxay ka soo cusnaatay in labada dhinac ay dusha isu marinayeen waa Soomaaliland iyo maamulkaas Khaatumaysteed dabcan magaalada Laascaanood ay kamid tahay meelaha dagaalada ay ka socdaan labada dhinacba waxa la isu marinayay eedeymo ay qolada kale ay ku sheegayeen inay yihiin argagixiso sidoo kale eedeymahan ayaa daba socday maalintii shalay ahayd markuu gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliland uu warbaahinta la hadlay isla markaana mowqifkiisa cadeeyay ku aadan dagaalka iyo xiisada ka taagan kaas oo la saftay dadkiisa shacabka wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa hadlo isaguna ku tilmaamay in uu ninkaas yahay nin qarandumis isla markaana isagu eedeymo dusha kaga tuuro ninkaas oo isku deegaan ka soo jeedin Cabdiraxmaan ayaa garabkayga fadhiyo arrimaha xogtii ugu dambeysay dhaafka Cabdiraxmaan oo maxaa ugu dambeeyay dagaaladan ka cusboonaaday dagaaladan ka socda muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood bismillaah magaalada Laascaanood dhaxdeeda wax dagaal hadda kama socdo waa la qabsaday in la xoreeyay baadna moodaa laakiin ilaa 3 aag oo kale iyo dagaal ka socda xataa meelihii laga soo duqduqeynayay Laascaanood waxaan u malaynayaa saldhigiina cambaashoon bay ahayd duqeymo xataas laga cabaadayo oo ku dhacay magaalada Faras magaalada iyo masaajideeda ma jiraan wararka qaar waxay sheegayaan meesha ugu dhow markii Gooja Caddo laga yimaado meesha ugu dhow ee Soomaaliland joogto 80 kilomitir bay u jirtaa magaalada Laascaanood agaas oo dhan waa laga saaray oo Gooja Caddana waa la go'doomiyay sida la sheegay waa la isku heelaamay waxaa kaloo jirta ciidamo aan filayo inay yihiin kuwii ka yimid Tukaraq iyo agaas oo isu socod gaadiid marayay baa jidgal loo sameeyay Soomaaliland dagaal baaxad la meesha ka dhacay jidkiina waa la iskala dagay ana ciidamadu in wixii la gaarsiiyay socdaalkoodii iyo ujeedkoodii gutaan bay ahaan jirtay laakiin dagaal jidka la iskala dagay oo ciidankii wadada laga leexiyay oo furasha timid oo waa khasaarihiisu aad buu fara badan yahay waana dagaal baaxad leh waa Cabdiraxmaan wararku waxay sheegayaan in goobo kala duwan uu maanta dagaal ku dhacay bal goobaha uu maanta dagaalku ka dhacay adoo goobahaas waxa kamid ah Maraaga Buundada Boode Gooja Caddo laftiisa culays la saarayo oo de saldhig aad u baaxad weyn ah saldhigaasna si ay ku sii haysan karto Soomaaliland aysan hadda jirin mar hadii de focus la saaray ama awood la saaray shacab gudoodsan fara badan ay saareen Soomaaliland haday ka banaysana ma difaaci karto meelaha kale ay ku tuumayso inay ka difaacdo xuduudaheeda hadii Soomaaliland ay ka ku far adeegto waxay suurto gelin riyadeeda ah inuu xad u noqdo ama ay hadda kadib inta isku urursato kala duwi karto laakiin halka hadii laga soo furto hadana tusbax furtay bay noqonaysaa sida aan qiyaasayno ama qiimeynta aqliga saliimka uu sheegayo labada dhinacba saaka war saxaafadeed ay soo saareen bulshada ay ku kala baahiyeen qolada kale ay dhahday weerarka iyaga soo qaaday saaka aroonimadii hore marka waxaan horey ula soconaa qoraalada noocaas oo kala inta badan iyo saxaafadada ay Soomaaliland soo saarto musiiba waqtiga ay sheegeen in ay xabad joojin ay ku dhawaaqeen hadana ay ka soo laba saarayeen shirar kale ama bayaano kale oo daba socdo oo ilaahay wana soo wareeyo weerarka qaal kuwan ay maanta labada dhinacba ay soo saareen in qolada kale ay soo wartay
arrimahaas waxay tiri Soomaaliland wax soo saartay inay dagaalku maanta u dhaxeeyo iyaga iyo Puntland dagaalkan iyaga iyo Puntland u dhaxeeyana inay Puntland iyo argagixisada iyo maxay ku jabiyeen Puntland way hadashay waxay tiri inaynan dagaalkaas shuqul iyo shaqo toona ku lahayn waxay nimanka ay sayaan ay SSC u yihiin wax alla wixii ay ama kala guuleystaan ama dagaalameen ay qolada u yihiin iyo Puntland la sheegtay iyaguna waxay soo bandhigeen gaadiid ay furteen oo leeyihiin calaamadihii Puntland baa ku yaala ku ay madfac ku dhufteen ku taagan ay furteen oo leeyihiin hubkaas iyo gaadiidkaas aan ciidamadii Soomaaliland ka qabsan Puntland ka qabsanay haddana waxaad arkaysay sawirro baraha bulshada lagu baahinayo 2022 muddo sanado ka hor ah la soo dhigayo la leeyahay waxa weeye gaari shil galay oo ciidamada Puntland oo 5 wiil ku dhinteen wax saas bostiya la dhigayo yaan arkayay si ay run u tahay marka in weerarkaas ay Soomaaliland baahiyeen wax xaqiiqo yahay lama cadeyn karo warar maxaan ku dhahay xataa ay si cadeymo ku filan u hayaan ma jirto dhaawac baan qabanay way soo bandhigeen iyadana laakiin macluulka dhaawaca waa wiilkii shilka maalinta ku galay yaa la leeyahay oo sawirka unba la adeegsaday dagaalkaas wuu balaadhay wuu tasaqay aad iyo aad buu jihooyin fara badan u yeeshay marar fara badan baa markii u horeysay Puntland lagu eedeeyo ma aha shalintu ka qabashadeeda karaash ciidamadiisii baa qabtay baa la lahaa hadana SSC baa isku soo sawirayso dhex taagnayd marka khalkhalka iyo culayska dagaalka ninka haysta umbu kolba jaho saaraya mar liyu boolis buu yiri mar al-shabaab buu yiri mar argagixiso kale uu yiri mar Puntland buu yiri ciidamada danabee dawladda federaalku yiri ruux kasto afkiisa ku soo dhaco wiila dagaalamaya un boor waana arrimaha waa yani ciladaha dagaalku leeyahay weeye in laga guuleysto astaamaheeda ka mid tahay nuuxa Cabdiraxmaan inta hadaynu dagaaladii maanta ugu dambeeyaan kaga soo laaban maalintii shalay ahayd sida aynu daawadayaasha u tabinayba waxa warar weyn oo la filayo gobolada SSC iyo siiba magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland baa u dhagtaagaysay soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliland nin lagu magacaabo Cabdirasaaq Khaliif oo ka soo jeeda goboladaas inta wixii ka dambeeyay Soomaaliland ilaa xalay TV-gooda warar kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan iyo war-saxaafadeedyo kala duwan ay soo saaraysay marka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta dadku ay hadal hayaan ninkii mas'uulka ahaa ee golaha baarlamaanka haystay baa lagu tilmaamay inuu al-shabaab yahay marka arrimahaas sidoo kale war-saxaafadeedyo kale oo daba socda oo sida koore nin lagu magacaabo uma malaysanayo inuu ka soo jeedo goboladaas uu jira isaga laftiisu eedeymo kala dul dhacay marka bal xogtaasi maxad ka haysaa shaambadan horta leeyahay waa al-shabaab iyo argagixis wax meel fog jira ma nin walba uu wataa ruux iska dhaxarka un buu ku dhufan muusana gacanta midig buu ku haystaa abiib haday sarkaan foodo ma ka dhufan waa shabaab u dhih ruux iska dhaxarko waad ku dhufanaysaa waa hub marka Mareykanku neceb yahay waa calaamad Mareykanku neceb yahay cid kasta neceb tahay Ethiopia neceb tahay deris oo dhan neceb yahay ruuxaad ku dhufato marka at least uu yar gaban baad isdhihi moogtay ninkii la oran jiray gudoomiyaha baarlamaanka awoodda saddexaad ee Soomaaliland waa argagixis la yiri taayaan tarada dhacday argagixis wuxuu ku yahay haddana la sii daba dhigay lacag buuxday bay yireen intuna hadlin ka hor lacag buuxday lama lahayn lacagteen u dhiibnay eenu nidhi ummadaas ku kala laaluush oo ku daji oo ku kala aamusi yuu rasaas iyaga u siiyay bay iyaga intuu rasaas u siiyay soo kiciyay يعني هدي العقد اللي ودي بدتها كسو جماد ودتك يسينو كوب بدبادي يسوق قاطي وهذا رجعنمه يقول لك أنتي فشلاني كويس دانو لين وأساس هذا كان ميديا الله مرنا يدقال كه نيك اللي وصل ديبه يوين ذيك وكاره ونيك ورفافين تاعها وزير ورفافين تاعها موسى مون يسوي حلين نيك اللي بيشي سهنا مون كهالسين كاره وأي نيك كان يسكت فيهين فاميلهين دجان كان دبكو تاجنا يلا يدي هذا ولي وربعين تدولة كوكر لما دين بيجك كوكر بيجكيس كوكر أنا مسك عارف ما تقبته أو إنه رجعك سويسيني ومدرس أنت مدودو ويحرودو ويجارو قان بالعيال كيس وتجان مو نوح كودي ردين ولي يجيبوا حن تاجوس بوها يقول نقول حدو مناي تاجوس نقول حدو مناي يوها وحنا كودي ماشان سوق جوجا إنه جيم بيدين قرشه هو العكتي أنو ديبنينا كبتو وضن ككود من لها من لماذا يجمهورية Soomaaliland iyo muwaafaqadeeda oo kaga shaqeyn lahaa yaa wuxuu kaga shaqeeyay inuu rasaas iyo shidaal u siiyo burburinta Soomaaliland iyo kala qaybinteeda ninka waxa cad in ay Soomaaliland waxba maanta
isu haynin oo ay kala dhinteen isaguna shalay markuu hadlayay inuu wax soo reebanayaad moodaysay oo waan ban wada abiib yarka la dhaho maxamed abiib xildhibaanka isna wuxuu yiri wuu saxan yahay gudoomiyaha baarlamaanku midnimada Soomaaliland ka shaqeynaya ee kuwa qaldan waa muuse iyo nimanka hawsha dhanka kale u rogaya marka taas ahayd waa tahay Cabdiraxmaan halkaas aan rabaa inaan wax ka weydiiyo sidoo kale marka uu warbixinta uu soo saaray ninkan koorar la leeyahay hormaran inuu wasiirka warfaafinta wuxuu baaq u diray golaha xildhibaanada oo dhaawaa in fadhi degdeg laga yeesho isla markaana xilka laga qaado haduuna inta ka horeyso uu isxasilin gudoomiyaha baarlamaanka yaa awood u leh in ay xilka ka qaado madaxweynaha ayaa digreeta kaga qaaday dadku halka waxa laga yaabaa inay ku wareeraan horta muxuu yahay gudoomiyaha golaha shacabka waxa doortay baarlamaan shuruudaha xilka loogu dhiibay dastuur qoran oo hooseeyay shuruudana waa laga qaadi karaa waa meeshu sharci ka jiro laakiin maqaayada Muuse Biixi sidoo doon yeeliyo doorashadii ku darsan xilligeedii dibdhigi gudoomiyaha baarlamaanka ka qaadi meeshu doonu sameyn laascaan weerari sidoo doonu u dhigi marka sharci hadda lagu xisaabtami karo kama jiro Soomaaliland baana aqaanaayo waxa kuma intay bayaan soo saartay inay yiraahdaan ku-xigeenkiisii baa ku bedelay oo wadada shaqada sii wadaya inay dhahdo xukuma ah laakiin gudoomiyahan waa cod baarlamaan buu ku joogaa cod baarlamaan baa lagu doobtay cadifadna lagama qaadi karo cadifadna looguma dhiibin waatahay daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka xog waran oo aanu kaga waramayna ama aanu xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka sool ee magaalada Laascaanood aan idinka waramaynay waxa igala qayb qaadanayay oo garabkayga fadhiya Cabdiraxmaan Afagaadho oo xogihii ugu dambeeyay ila falanqeynayay intaan barnaamijkan kiisa xigaan ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabad